هل نيك هالكن لفر يا وكما عبد القادر عبد الرحمن أحمد حقيقة كل شيء قول كتب لي رأي برعة أي إمك هالكن شوكته الرقيسة واي محاد كش قيسا وحق شقية وسارد والباكين تدخل كيو وعي قلت جمهورية الصومالية واي محا كان أنت محيته كان أنت شغادة وما ولد عروتها واي ما ولد عروتها أنتين لك بدو ديمك waxaan wada mudaafa bilowda aad baad u daayartaan malaynaya imse tilmaad 13 maxaa kugu dhaliyay hargeysa timaado wallahi dawrtu waxay ku dhaliyay waxyaabo fara badan waa koo ay ka koo tahay horta gobolka togdheer aan joogay kama shaqeeyaan TV studio kama shaqeeyaan hargeysa aad uga shaqeeyaan way agaasimayaashii TV-yada hargeysa joogaan duruuftaas ay u dhalisay inaan hargeysa imaado sideebeed wasaaradda ugu soo shaqo tagtay horta wasaaradda wallahi dee waxa horta wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin ayaa ii fududeeyay inaan wasaaradda warfaafinta imaado isagana aad iyo aad bartaan uga amaanaya mar walna waxa leenahay guulayso joog dalkaaga iyo dadkaagana u halgan baa leenahay diinta waa adiga iyo Maxamed Kaahin sidee isku hesheen wallahi horta dee waxa ii fududeeyay marka uu horeysay istaabka dibadda ay fududeeyay markii ku xigtayna xogeyntiisa nimco maxamed ayaa ii fududeysay iyaduna sideebaad nimco ku soo heshay wasaaradda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha tilmaam baan ku yimi oo sidee ahayd markaa tilmaam la iga soo tilmaamay madaxtooyada markii hore madaxtooyada u shaqo tagtay markii hore madaxtooyada ku horeeyay laakiin way suurtagal weyday Maxamed Kaahin bay iiga suurtagal markaa ma iyaga ku tilmaamay yiri xagga tag ha iyaga ii tilmaamay nacam way markii lagu gartay inaad reer burcad tahay ha markii la gartay inaad reer burcad maxaad kala kulantay wasiir Maxamed Kaahin wax fiican baa kala kulantay way uu yaabay markii ku adu tagtay ha markii hore uu yaabay way wali uu aragay qof intaydan oo kala leego idii shaqaysiyo uu arkay inta lindal yaraayo idii shaqaysi waa ku sababtaas aad ka yaabisay marka uu kula qaatay wasaaradda aad khusayso marka ku gudbiyay ha wasaaradda khusayso gudbiyo wasaaradda warfaafinta marka uu ka wasiiraha Maxamed Muuse Diiriye imka biyaha صح marka barnaamijka ugu xisaab badan ee siidaysa maxaa kamid ah waan ku tilmaamayaa horta waxay aad u xiiseeyeen carruurtu shonda sheep waxa kale aad u xiiseeyeen Tom and Jerry-ka iyo waxa kale oo xiiseeyeen Big Panda inta xiiseeyaan waynta maxaad kula talinaysaa nashidooyinka iyo sheekada maxaad kula talinaysaa ciyaalkii lodkaaga ahaa gobolkaad ka soo jeeday gobolkaasi dee maanta hadduu nin yaro inta leeguga yimiba iyagana aad iyo aad baan u hambalyeynaya gobolkaygii dhallinyaradaydii asxaabta ahayd cid wal oo bartan iga garanaysa aad iyo aad baan u hambalyeynaya waa sax maxaad hiigsanaysaa da'daadu aad bay yartay waa 13 jir waa carruur baatay marka imaka carruurta Yurub ku nool oo kale da'daada ah waa la ilaaliyaa sax adiga wax ilaalaa ma lagu saaraayo ma ka baqataa dabada inaad u baxdo kale iyo in lagu qaato kale iyo in miyaana da'daadu aad u yareen oo aanu carruur ahayn horta middan kuu sheegaya horta marka shaqaaqa jirtaa ma dagaal jiro nacam gurigiina waad ku xaroonaysaa marka lagaaga sheekeeyo waxbaa wax qaato iyo hargeyso dhanba waxaa ka sheekeynayso taana waad baqaysaa maanta haddii nabadgelyadii haysto ammaankaygina aan haysto wax iga maqan ma jirto dabadda sheegaysaa iyo burca ku tagaya okay marka maxaad hiigsanaysaa imaka halka imaka barnaamijka carruurta maxaad ka sii hiigsanaysaa inaad noqoto waxaan doonayaa inaan horta wasaaraddan iminka joogo inaan agaasimayaal ka soo mara agaasimo waxyeed iyo aan sidaa hadhow talon ugu gudbaa aan agaasimo guud wasiir madaxweyne sidaa ku noqdo marka waxaad hiigsanaysaa inaad madaxweynaha Soomaaliland noqoto madaxweynaha Soomaaliland insha Allah haddii Ilaahay gaarsiiyo wadun baa dee naga horeeya insha Allah marka maxaad imaka faraysaa dhalinyarada guud ahaan reer Soomaaliland gobolada dalkoo dhan degan horta maanta Soomaaliland waxa bartaa dhigay waa qabyaalad iyo balwad horta balwadda dee waa horta haddii maanta dee jaadka yar soo galaya hadii la waayo maanta lin walba reer hebel buu sheeganaya ma garatay horta jaadkuna isagu balaayo noo soo kordhiyo faa'iidooyin uu soo kordhiyo Etoobiyana dee imika haddii bari u dhawayto wasiirka maaliyadda Dr. Saad Al Shire uu xisaabinayay
وحوري أنت هاسو أكونو لعب أي توبيه نجمع أو دولار واي السياسة نورتو ده دقالها هنا جو بهان دقالها هنا جو بهان هو الدولة يروسوك بعيو ده إمك لبي تدوي لباتن كرسده مستيد لباتن كرسده واكو إمك صدق كيد ميلها جلية ما قرأتي أنا واحد لا يهون ويقتلا تلكينا يوذو قمتنا أوكي ود ما سنت